إله واحد نجم الدكتاتور يوجا لقيت ترد بدنيه إله واحد نجم الدكتاتور يوجا لقيت ترد بدنيه إله واحد نجيش هذا يوجا لقيت ترد بدنيه سداس أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكنت عايزين شري مركي لو ويدي ده يوجا لقيت ترد بدنيه هي عمر وأتشيك سواء ينام وحوكش وبين يهين كوناكسن في عن إلهي ومهضنقة وقرآن كمركز دخلته وحضرك إن كوناكسن أيريهن سيد إلهي كنت المامي آياته وقليل من عبادي الشكور الطوم هيك إنير أيون باي مهضنقة marka dadka laga tirada badan yahay waa dadka fiican ee wanaagsan ee hagaagsan ee toosan ayadan iyada iyo sheekadan Umar ibn Khattab radiyallahu anhu waxyaalaha ay xasuusi waxa kamid ah sheeka aad iyo aad u xiiso leh oo maalin dhawito la dhacday ninka aad hadda arkaysa ee sawirkiisu ku muuqdo waxa loo yaqaan Elon Musk waxa lagu tiriyaa amaba uu yahay waqtigan hadda aynu joogno waa ninka ugu maalqabeynsan ee ugu hantida badan leh daafaha adduunka oo dhan nin hadda ka lacag badan oo la sheegi kara ma jirto hantidiisu waxay dhaaftay billions bay dhaaftay tira aan sheegi karayn ayaa ay gaadhay ninka isaga ayaa maalin dhaweytoole waxa la wadaagay tweet ama fariin waxa la wadaagay Twitter kama isticmaal hadii aan qaldan wadi qaban doonta waxa fariin la wadaagay in Sacuudiya dabadna ninkaas waxa uu leeyahay fariintiisana u dhigay sida tan wuxuu leeyahay Elon Musk waxa tahay nin aad iyo aad u maskax badan nin waxa tahay aad u aqli badan hase haddii waxaan la yaabanahay ninka maskaxda inta la egleh sidee ayaa aqligiisaas iyo maskaxdiisaas ay u siin weyday inuu Ilaahay weynaa uu kaligii aamino inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala adduun abuuray Ilaaha waxa way caalamkan kay sameeyay Ilaaha kaligii ay tahay in la caabudo maxay ayaa uu caabudu laayahay amaba aanu u aaminsanayn بمعنى هالك واحد كلا صباح هنا نكين إيلون ماسك وأن آن إله بأمسنين وقال علي وتوفي وأن حتى كريستيان كأن هيسن إله بأمسنين ودون كنشرو تبدأ إنك هسوي حليني وحسوكي قبل لها عقلي هاجن يو حسوكي قبل لها وحوي إيمان لأنت هذا يصير أنا إلهي أنا دورهم يسنين تبدأ إنك ريتويت بوسيو وسوتشو وحوري وتكون هالسنتها السيدة في عن هذا الأوردك مثلا وكله وتكون هالسنتها السيدة في عن وحوي أدوحي وشيكتي بركو هسه هاتي وحوري أنا جو وح مشكلة ذاك ما قبو هدي أن جهنم أنقله وح الله لي وح مشكلة ذا نوارك هبية راتي ما شرتو ما دام دتكو أنتو ضبطني جهنم قليا هذا الكاسوح ونقضي هذا العاد ياد لوليا بي نين انت بدن ادونكو اي قدريان او العكس كو قدريان هذا الكيمد runtii waxa aad iyo aad lagu leeyahay way wuxuu ilaanu raalli baan ku ay jahannama malaayinka qof ay galay faraha badalana dawan la wadaagi doona sheekada iyada markaan arkay waxaan runtii kala soo baxay 14 oo muhiim ah 14 ba marka adiga aan rabay inaan kula wadaago si fiican ay dhagahaaga ay waxa weey wax ugu tarto waa ariga koobaad dacwadda markay islaamka aynu ka sheekayno in dadka islaamka ugu yeedho in dadka islaamka iyo wanaaga aad ugu yeedho waa shay waajib oo qof kasta oo muslima saaran adigana laga rabo hadii aanad sameeyna waajib aad dayacday ayaa ay tahay dacwadda iyo islaam sheega iyo wanaag farista iyo xumaan reebistu uma taalo qulooyin culimo ah khamiis xidhan oo gar waaweyn oo wadaadaha kaliya uma taale qof kasta oo muslimo islaamnimada waxa weeye soo galay oo haysta waa arin waxa weeye looga baahan yahay ninkani aqoon male ninkani nin wadaadnimo iyo caan ku ah maaha hase hatta xiskiisa iyo waajibnimadiisa diimeed waxay tustay inuu ninka wax u sheego ninkiina uu soo jawaabay walow uu jawaab aan qurux badnayn uu ku jawaabay faa'iidada labaad ee iyaduna muhiimka ah faa'iidada labaad ee muhiimka ah waxa weeye waqtigan hadda aynu joogno dadku waxa ay la dhacsan yihiin waxay dadku la dhacsan yihiin aku fasir hadalka bimacna qofku wuxuu sameeyaa shay haduu doono isagu ma jecla haduu doono macna badan iyo faa'iido badan oo ka dhax arkaya ma jirto laakiin wuxuu sameeyaa dadku way sameeyaan oo ni hebel maxad u daawataa oo dadku dhanba way daawadaan ku xidhan yihiin oo ni waxa weeye aad u sameeyay weeydi nuu dadku meega waxa sameeyay bimacna diintiiba waxay noqotay waxay dadku sameeyaan diin la'aantuna waxay noqotay waxaanay dadku sameeyaan sida awgeed waxaad ogaataa in islaamka dhexdiisa quraanka markaad akhriiso dadka intooda badan way lunsan yihiin dadka intooda badan ilaahay uma mahadnaqaan dadka intooda badan waxba ma yaqaanaan dadka intooda badan way xanuunsanayaan way xun yihiin baan u jeedaa dadka intooda badan waxa weeye ilaahay ma rumaysna mar walba quraanka waxa lagu sheegay in inta badan aanay ahayn waxa wanaagsan inta yarina ay tahay inta wanaagsan sida awgeed waxaan kaaga digayaa inaad ku dagsoonto waxyaalaha dadku ay sameeyaan inagu dadka ma eegne waxa ilaahay uu sheegay baa inoo diina arinka saddexaad ee sugan muhiimka ah waqtigan hadda aynu joogno waxa soo baxay dad yow aad iyo aad dadka ugu xaysiya dad yowga waxa way gaalada ay haba yaraatay wax allaaliyo waxaynu wadaagnaanay jirin waxaad arkaysaa inta badan dad yowgan waxa way motivational speakerska ama dadka waan dhiirigelinaa miyaad aragtay waxa ku dhiirigeliyaan waxay kugu dhiirigeliyaan Jeff Bezos
ninka Amazon kale waxay kugu dhiirigelinayaan inaad noqoto sida Steve Jobs oo kale, Bill Gates oo kale, waaweynka reer galbeedka ee gaalada ee wax allaale wax naga galay iyo waxaynu wadaagna haba yaraatee aanay jirin, eedan isku deegaan ahayn, eedan isku caqiido iyo diin ahayn, eedan isku kalar iyo midab ahayn, ee wax allaale waxaad ka simantiin aanay jirin, dadka inay ku dhiirigeliyaan baa soo baxay. sida awgeed cidda aad role model ka dhiganayso, cidda aad ku dayanaysaa mar walba ha ahaato cid aakhiradaada iyo adduunkaaga labadaba wax ku taraysa. yaanay noqon nin gaala oo abtar ah oo waxa way goblamay oo aan aakhiro boos ku lahayn, iska jir inuu ku noqdo cid aad ku dayato. watala aan aad iyo aad dhalinyartaan u siinayo waqtigan hadda aynu joogno waxa aad iyo aad samada u maraya fikirka adduunka ka fikirka ah oo kaliya, qof adduunku ka fikiraya aakhiriba aan xisaab ugu jirin. ninkan gaalka ahi erey ayuu aan qurux badnayn oo ah inuu aakhiro doonayo inuu la galo jamca faraha badan leh ee waxa weeye ee jahannama galaya sidoo sugaafkiisa ku sheegay. hase haddii waxa jira dad aad iyo aad u fara badan oo muslimiinta kamid ah oo han aakhiro haba yaraatay xisaabta ugu jirta aanay jirin. waxa laaliyo wuxuu doono sameynaya, waxa laaliyo wuxuu doono cunaya, waxa laaliyo wuxuu doono ka shaqeynaya, waxa laaliyo wax kasto maskaxdiisa ku dhaca ayuu sameynaya. waxa ka maqan xakamihii ahaa warhooy aakhira ka dambaysa, warhooy janniyad naar baa dambaysa. midna aan kugu daro saaxiibkayo, waxaad ogaataa marka ay waxa weey janniya naar ay tahay maaha wax sanad iyo 2 sano iyo 3 sano iyo xataa bad iyo 100 sano dhow hadda doontid 1000 sano badhe lagu jiraayo maahe, waa wax lagu jirayo abadal aabidiin, weligaa baad ku jirayso. sida ogeed ta waxaad weligaa aad ku jirayso oo aad weligaa aad ku dhamaysanayso cimrigaaga iyo waqtigaaga, ha u dayicin oo ha u liigin 60 sanadood adduunka aad joogto, 20 sanadood dhalinyarnimada aad haysato, waqti yaro kooban oo si yaro fudud kaaga baxayo inad garanay xilli aad tagayso. iska jir inuu saameyn iyo khalkhal uu ka galiyo aakhirada baaqiga ah weligaa aad ku jirayso. saaxiibkayo ama janno ay noqon doontaa weligaa aad ku jiri doonto, ama waxay noqon doontaa aakhirada naar aad weligaa ku jiri doonto oo aan laga saarin. taasina wax sahlan ma aha. rajaynayaa fariintaydaas ku soo gaadhay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.